Maanafay waa 18 jir dugsiga sare dhigata ka dhalatay qoys reer xamar ah aan rag xiriir la yeelan ka hor isbarashada dhex mari doonta Axmed Jaamac Dhegi. Axmed Jaamac waa injineer da'yar dhawaan ka soo qalin jabiyey jaamacad dibadda ah, jecel inuu helo gabar wanaagsan oo uu guursado, hase yeeshee ka aamin baxsan hablaha ay isku faca yihiin kadib markuu arkay sida ay u dhaqmayaan. Jaamac Dhegi waa Axmed aabihiis, waa 60 ku dhowaad jir miyi ku soo koray, faqri iyo dhibaato badan ku soo barbaaray, ugu dambayntii ka mid noqday madaxda sare ee dowladda, lacag badan iyo nolol cusub dhex galay. Hamigiisu yahay in uu dhaqso u taajiro si waalanna u tunto, hase yeeshee xaaskiisa iyo carruurtiisa tusa weji kale, weji oday qoyskiisa daacad u ah, xishoodka iyo alla ka cabsigana aad ugu dadaala. Xaaji Muumin waa Maanafay aabaheed, waa oday reer xamar ah, iskiis u shaqaysta, ganacsada ahaan ku dheggan dhaqankii hore ee banaadiriga ama reer xamarka, aan aqbali karin carruurtiisu in ay guursadaan dadka uu isagu u yaqaan Soomaali ama lamagoodli, micnaheedu yahay laba go'le. Waa Soomaalida aan reer xamarka ahayn ee gobollada kale ka yimi. Wuxuu u haystaa geeljiro waalan, dabci qallafsan oo aan lala dhaqmi karin. Wuxuu aaminsan yahay ubadkiisa inuu isagu u xulo qofka ay isguursanayaan. Muhiim lama aha in la tixgeliyo rabitaankooda. Bayden Shabel waa haweenay dhexaad ah, wuu u furan yahay aqal lagu geerasheeyo, xirfaddeedu tahay isugeynta ragga iyo dumarka. Dhallinyaranimadeedii ka mid ahayd dumarkii u soo halgamay gobonnimo doonka, aad u niyad wanaagsanayd, kadibse dani badday inay jirkeeda iibiso. Markii ay weynaatayna hablaha yaryar iibiso. Taasi waxay ka dambaysay markii ku hungowday dowladdii Soomaaliyeed ee ay ku riyoon jirtay. Kulmiye waa Axmed saaxiibkii, waa nin dhallinyaro ah, calooshi la cayaar ah, shabeelnaagooda, wakhtigiisa oo dhan ku mashquula tumasha raadiska, ugaarsiga iyo khayaamaynta gabdhaha yaryar iyo balwadaha halista ah. Sheekadu waxay ka kooban tahay 11 xubnood oo waaweyn. Waxaan ka bilaabi doonnaa xubinta labaad. Waa halka ay ka bilaabato silsiladda dhacdooyinku. Xubinta koowaad waa ibafur horumaris ah oo laga soo horeetibiyeystay bartamaha silsiladda. Waa sawir qacada horeba lagu gilgilayo dareenka akhristaha, laguna xadantaynayo xiisayntiisa. Waa xeelfaneed loo adeegsado sheeka xardhidda casriga ah. Waxaana la hor keenayaa Maanafay, xidigta sheekada oo dugsiga sare ka soo rawaxday, aqalkooda soo galaysa, buugaagtii ay siiyatay koomadiinka ku tuuraysa, ayana sariirta ku gataati dhacaysa, dharkii iska beddelila, hooyadeed salaamila, cuntada ka qaadanla, daal iyo walbahaar la ildaran, dood iyo buuq baa maskaxdeeda ku furan, mar iyada ay siifaysa, mar waalidkeed bay haaraamaysaa, guur ay ku khasbayaan bay ka cabanaysaa, mar waxay huruufaysaa dugsiga ay dhigato. Dareenkeedu dugsi uma jeedo, meel kalaa looga durbaantumayaa. Waxa ay ka gubanaysaa xornimo la'aanta haysata. Waxay xasuusanaysaa saaxiibteed Sahra Yuusuf. Waxay jeclaysanaysaa inay mar sida Sahra noqoto qof xor ah oo aayaheeda iyadu ka tashata. Markay Sahra soo xasuusato ayaa waxaa ku soo dhacaya waxyaalo badan oo soo maray dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Waxay xasuusanaysaa galab Sahra ka codsatay inay aqalkeeda ku soo booqato, kadibna ay halkaa kala kulantay arrin ayan ilaawi doonin inta ay ifka ku nooshahay. Arrin albaabka u furtay dhulgariir halis geliyey noloshii qonyar socodka ahayd ee Maanafay iyo qoyskooda. Waa halka ay ka bilaaban doonto xubinta aan ku furayno akhriska sheekada. Sahra Yuusuf guri bulukeeti ah oo 4 qol ka kooban ayaa mid u kiraysan yahay. Aad bay u nadiifisay una sharaxday qolkeeda. Geeska midig waxaa gidaarka cirifka ku haysa sariir foormiig ah oo si fiican u goglan. Koomadiin sideeda u madow baa agyaal. Harqad yar oo ay gacanteeda ku toshay baa ku fidsan. Rikoor baa sii dul saaran. Cajalado badan baa dhinac rasaysan. Dabaqiisa hoose waxaa saaran wargeys ka kooban sheekooyin caashaqa ah oo sawiran, foto romansa.
gasada dambe waxaa ka soo jeeda armaajo gaaban oo iyana sariirta u eg. khaanadaheeda mid baa nus furan, dhar dumar baa ka muuqmuuqda. harqadtii koomadiinka u eg kasa weyn baa ku dadan. qasacado iyo dhalooyin yaryar oo fara badan baa kor safan. waxaa qaarkood ka dhammaaday, qaarna weli ku jira barafuunno iyo waxyaalo kale oo dumarku isku carfiyaan ama isku qurxiyaan. gidaarada waxaa ku teedsan sawiro iyo farshaxanno kale oo kala duwan. dhanka bidix waxaa fidsan saaloota yar oo madow. waxa ay ka kooban tahay hal kursi oo 2 qof ku filan iyo 2 ka yaryar oo ka soo horjeeda. miis yar baa u dhexeeya. kursiga ballaaran ee iridka ku jeeda waxaa isku barakaadisay Sahra Yuusuf. gacmihiisii kala fogaa bay midna isku tiirisay, midna lugaha dul saaratay. kursiga halka qof qaada ee ka soo horjeedana waxaa ku dhacadiida Maanafay Xaaji Muumin. qudheeda kama qasna, martina umeeka. marba dhankii ay doontay u maja fidsanaysaa. faantadii lagu soo dhoweeyey bay iska fiiqsanaysaa. shaakaa baxaysa, qosol baa bururaya, muusig baa birmanaya, hadalkaa la kala boobaya, kaftanka iyo fararka cayaarka la isku tuurtuuraya. carrada in dad kale ku nool yihiinba lama dareensana. kow 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 albaabkaa la garaacay. jag sheekadii baa la xiray, dhagaha la taagay. hoodi hoodi ayaa albaabka shiishadiisa ka yeertay. wagarey wagar waa cod rag, war cusub, waa la ishaya ah. Sahra intay jiifkii ka booday bay qun u fadhiisatay. guntiinadeedii kala daadatay bay soo haabhaabatay. meelihii qaawanaa ee maradu ka faydantay ayay kor iyo hoos ugu fidisay. guntigii ay iska dabcisay bay dib isugu giijisay. Maanafay iyadu naxdintii runta ahayd bay naxday. samadaa maskaxdeeda seeri uga dhawaaqay. intay kud isku tiri ayay 4teedii addinba soo urursatay. sidii diin khatar dareemay. faantadii ay fiiqsanaysay bay degdeg miiska u duldhigtay, sidii qof tuugo lagu qabtay. garbasaartii kursiga gacantiisa u saarayd bay halhaleel u soo haabatay. intay hagoog jiq isku siisay ayay xagga gidaarka u jeesatay. Sahra markay diyaar garowday bay albaabka inta yari ka furan tahay indhaha ku taagtay. qofkii aan loo jeedin ee idanka weydiisanayey ayay ugu dambayntii la hadashay. yaa waaye soo gala. waxaa soo galay inan da'diisa 22 jir lagu qiyaasi karo. waa maariin dhuuban, dhabankiisana lannaani ka ifayso. hadalkiisu waa ka soo horreeya. hambalyo, caawa aad baad u faraxsan tahay Sahra. sheekada iyo qosolka kaa baxaya xaafad shanaaddaa laga soo raacaya. intay kursigii uga kacday, farxaddeedii duushayna dib u soo ceshatay ayay ku tiri, haye Axmed, ii warrana bow, baryahan waaba lagu waayee, caawayaaba kaa roon. Sahra oo weli hadlaysa ayuu Axmed intuu Maanafay ku jeestay si xushmad leh ugu yidhi, jaawa bahay. maana madax ruux keliya ayay ugu jawaabtay. Sahra hadalkii sii wadatay ee tiri, qoftan oo saaxiibadday ah oo aad iigu dheer ayaa ii timid oo sheekadu ay suu kaaya baxday. i dhegayso. Axmed aad uma dhegaysan, waxbana isma martiyeyne. intuu si deggan, isku kalsooni iyo isla weynina aan ka marrayn u soo tallaabsaday ayuu kursigii weynaa ku dangiigsaday. Sahrana intay dibadda u yara baxday, haddana dib u fadhiisatay ayay tiri, iyadoo Maanafay gacanta ku taagaysa, Axmedna hadalka u jeedinaysa, Axmed, gabadhan iska baro. Maanafay baa la dhahaa. maana wiilkan waa walaalkay injineer Axmed Jaamac. maana intay hal mar wiilkii milicsatay, haddana indhihiisa hoos uga gabatay, ayay cod aan aad loo maqlayn ku tiri, barasho wanaagsan, iyadoo dhulka fiirinaysa, iskuna dayaysa inay qariso farkanaxa lama filaanka ah ee jirkeeda wada saaqay. Axmedna intuu si xiisa leh isha gees ugu shiishay ayuu cod macaan ku yidhi, jaaw Maanafay, barashadaadu waa ii farxad weyn. weli eegmadii dulucda lahayd kamuu dulqaadin. dhoolla caddayntii uu ku soo dhoweynayeyna muu xasuusan in uu wakhtigeedii dhammaaday. quwad ka dahsoon baa dhankeeda u jiidatay, dunidii kalena iluu siisay. wuxuu u hinqaday inuu ku tuuro erey macaan
oo kaftan iyo afgobaati isugu jira si uu qalada uga saaro. hase yeeshee ereygii cunihiisa sooma dhaafin. waxaa hakiyey dareen aan caadi ahayn oo ay ku soo bitisay quruxda aan caadiga ahayn ee hortiisa ka muuqata. yaa salaam, waxaanay qurux miyaa ayuu iskula hadlay. tanina maxamar bay ku noolayd. ka marag inaanan hore u arag qoortaan mulaaxda ah, midabkan dahabiga ah, dhabannadan cuddoon, indha maraa'igeedkan la leemaysan iyo timahan indha daraandarka ah. laakiin sug, waxaad mooddaa inay yaro gaaban tahay miya? bal markay istaagtaan u fiirsan doonaa. axmed sidii loo bixi jiray buu u baxay, soomana noqon ilaa uu maqlay codkii Sahra oo dhankiisa bidix ka leh. maxaad la aamustay? maad noo sheekaysid? ula kacbay filinka uga kala goosi. kadib markay wejigiisa ka akhrisatay dareenka maskaxdiisa ku meehanaabaya, axmedna intuu iskartay ayuu wuxuu ugu jawaabay isagoo xabad sigaar ah diyaarsanaya si ay degganaanta ugu caawiso. sheekee adigaa marti lagu yahay. cabbaar la yaro sheekee. maanafaa iska tagtay markay u adkaysan weyday ninka soo hor fadhiya ee aan bixi rabin, eegmada dulucda lehna ka dulqaadi rabin. Sahraa sii dhowaysay. markay ka soo noqotay ayuu axmed su'aalo ku bilaabay. Sahra, malaa'igtan yari maxay ahayd? ma run baa inay tahay saaxiibtaa? wallaahi saaxiibnimo aad u weynna ma aha, laakiinse yarta si fiican baan isu naqaan. berigii aan xamar weyne degganaa baan isbarannay. Sahra iyo axmed waa walaalo isjecel, isuna da' dhow. waa ilma abti ku soo wada koray aqalka reer jaamac dhegi. sirta qaarkeed waxay isugu qarsadaan sidii laba gabdhood oo saaxiib ah. Sahra waxay aad u jeceshahay inuu axmed reer yeesho, weliba inuu guursado gabar ay si fiican u taqaan. iyada qudheeda mar baa la guursaday. muddo gaaban kadibse ninkii way kala tageen. intii ka dambaysay gaar ayay u degganayd. arrimaha dhallinyarada iyo isshukaansigooda khabiirad bay ku tahay. hase yeeshee waa gabar sharafteeda aad u ilaashata. waxay macallimad ka tahay dugsi hoose dhexe. axmed wuxuu Sahra ka codsaday inay u fududayso inuu maanafay la saaxiibo. Sahra qacdii hore fikraddaas way u riyaaqday. waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay maana iyo axmed oo isguursaday. waxay ku riyootay guri walaalkeed oo ay hooyo ka tahay gabadhaas quruxda badan, dabciga wanaagsan, dugsiga sarena ka qalin jabinaysa, iyadana saaxiibaddeeda. laakiin daqiiqad kadib dareen kalaa ku dhashay. damiirkeedaa dood ku furay. nimanka wakhtigan jooga lama aamini karo. walaalkaana allaha ka dhigay. haddaad gabadhaas islaameed u soo gacan geliso ee uu berri mustaqbalkeeda ku ciyaaro, dembigaas qofta aakharo lagu cadaabi doonaa sow adiga maaha? maya ha barin mise waa iska baraa. Sahra way isku maqan tahay. axmedna wuxuu ku soo eegayaa indha aan aqbali karin maanafaa iska ilow. bal aan eegno toddobaadka dambe iyo tallaabooyinka soo fool leh.